ma ku fikirtay inaad u dhoofto Mareykanka si aad lacag u samayso mise og tahay inuu jiro dalka yar Mareykanka kana mushaar badan cashuurtiisana ay aad u yartahay sanadkan 2026 kuwaani waa shanta wadan ee adduunka ugu mushaarka sareeya kaalinta shanaad waxaa ku jira dalka Norway waxaan ku bilaabeynaa dalka Norway oo bixiya mushaar gaaraya $53,643 marka laga soo tago quruxdiisa iyo deganaanta dalka Norway waxay caan ku tahay nidaamka sinaanta. Norway waa dalka ugu horeeyay ee adduunka ee isticmaala gaadiidka korontada taas oo nolosha ka dhigtay mid nadiif ah. Halkan qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu ku noolaado nolol heer sare ah. Dalka kaalinta afaraad ku jira waa Iceland oo bixiya mushaar gaaraya $55,984 sanadkii. Inkastoo uu yahay dal aad u yar, haddana waxay caan ku tahay xuquuqda shaqaalaha. Iceland waa wadankii ugu horeeyay ee tijaabiyo shaqo 4 maalmood ah toddobaadkii iyadoo mushaarka sidiisa yahay. Ma qiyaasi kartaa inaad 3 maalmood nasato isbuucii lacag badan lagu siiyo. Dalka kaalinta saddexaad ku jira waa Switzerland oo bixiya mushaar gaaraya $60,124 sanadkii. Halkan xirfadlayaasha IT-ga iyo maaliyadda ku ugu sareeyo. Inkastoo nolosha magaalooyinka Zurich iyo Geneva ay tahay mid qaali ah, haddana dalkan cashuurtiisu waa mid aad u yar. Lacagta Swiss franc waa mid kamid ah kuwa ugu adag caalamka, taasoo lacagtaada qiimo weyn u yeesha. Ma og tahay halkii Swiss franc inuu dhigmo 724 shilinka Soomaaliga. kaalinta labaad waxaa ku jira dalka Mareykanka ayaa fadhiya kaalinta labaad asagoo bixiya mushaar gaaraya $6,154 sanadkii. Mareykanku waa hoyga tiknoolajiyada adduunka ee Silicon Valley. Inkastoo oo mushaarkiisu sareeyo, Mareykanku waa dalka kaliya ee liiska ku jira oo aan lahayn nidaam caafimaad oo bilaash ah. Tani waxay ka dhigan tahay in inta badan lacagtaada ay ku bixi karto caymiska caafimaadka. saaxiib, haddii inta nala soo gaartay fadlan akoonka subscribe video like saar noona sii share garay mahadsanid. ugu dambeyntii wadanka ugu mushaar bixinta badan adduunka waa Luxembourg ayaa bixiya mushaar gaaraya $62,636 sanadkii. dalkan yar oo ku yaala bartamaha Yurub wuxuu ka dakhli badan yahay quwado waaweyn. Luxembourg waa dalka kaliya ee adduunka oo dhan ee ka dhigay gaadiidka dadweynaha mid gabi ahaanba bilaash ah. Imagine inaad mushaar qaadanayso haddana aadan bixinaynin lacagta tareenka iyo baska. Dadka ayaad is leedahay inuu ka maqan yahay liiskan. Luxembourg ma u qalantay inay gasho kaalinta koowaad? Fadlan noogu reeb ra'yiga qaybta faallada fiidiyowna share garay mahadsanid.